السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالهانتين بقيارته هودا naga daalacanaysay halkani waa Mareeg Media wararka ugu door karoon maanta idinku hayno channelkan waxaa kamid ah ciidamada fara badan oo gaaf wareegaya caasimadda Addis Ababa dalka Itoobiya shaki laga qabo ra'iisul wasaaraha dalkaas Itoobiya inuu dhintay dhaawac ka soo gaadhay ilaaladiisa ayaa la xoog badan oo ilaa xalay maanta ka socday balad xaawo oo guulo lagu kala sheegtay ciidamadii TPLF oo la sheegayo inay weerarada la soo qaadeen kadib markii ay shaki maqleen in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu saaxada ka maqan yahay taliyaha ciidanka dhulka ee Soomaaliya oo war saxaafadda la hadlay muuqaalkaas aan idin la wadaagi doonaa haddii ay barnaamij ka noqdo iyo warar kale oo dheeraad ah isku soo noqod wanaagsan khiyaarta wada naga dalacanaysa sidaan hore idinku sheegay wararka ka imanaya magaalada Balad Xawe ee gobolka Gadaa ayaa sheegaya halkaasi xalay iyo saaka inay ka dhaceen dagaalo culus dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay Balad Xawe ay soo weerareen jabhad falaaga ay soo hubaysay dowladda Kenya ayaa markii ba aan ka jawaabin hadalkaasi hase yeeshee waxay dowladda Kenya hore isaga fogeysay inay faragelin ku hayso dalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ciidankooda darwiishta Jubbaland oo ku sugnaa aagaasi la soo weeraray kadibna ay iska caabiyeen dagaalkan ayaa saaka saacadihii hore si xoogan uga socday magaalada waxaana uu sababay khasaare naf iyo maal ah waxaa halkaasi la sheegayaa inay caruur isku qoys oo 5 ilmood ay ku dhinteen hooyadoodna ay ku dhaawacantay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo goor dhaweyd warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka saareen waa sidoo hadal ku dhigay jabhadii soo weerartay halkaasi ay soo hubaysay Kenya sawirkan Yurub ku maqasheen caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa oo laga dareemayo jahawareer iyo isdhaxyaa dhanka dowladda ciidamo badan ayaa lagu soo daadgurayay gudaha magaaladaasi waxaa jira xaalado hoose iyo warar soo baxaya jahawareerkan ayaa xalay bilowday xaaladan ayaana ka bilaabatay maamulka sare ee dowladda Itoobiya kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya la waayay muddo bil iyo bar ka badan waxaa la sheegayaa oo xiriir lala sameeyay dad u dhadhow oo ehelkiisa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya dadkaasina waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha uu dhaawac ka soo gaadhay ilaaladiisa kadib markii ay rasaas ku fureen waxaa sidoo kale la leeyahay oo saaxada ka maqan sargaalkii ugu sarreeyay sirdoonka dalka Itoobiya sidoo kale waxaan la haynin Axmed Shide oo ah wasiirka maaliyadda oo ka soo jeeday deegaanka Soomaalida ahna wasiir heer federaal mas'uuliyiintan saddexda ayaan lagu arag xafiiska ama aqalka looga ramiyo dalkaas Itoobiya muddo dheer waxaana baraha bulshada ku aragtaan ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dalka Itoobiya inuu wadanka uu shirarka iyo goobaha xafiiska ra'iisul wasaaraha isagu ka muuqdo taasina ay ka turjumayso ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuusan kolkaasi uusan ku sugan goobaha shaqada soo cusboonadeen u dhaxeeya ciidamada TPLF taabacsan iyo dowladda federaalka waxaa la sheegayaa dagaaladan inay ciidamada TPLF dib ula wareegeen tuulooyin hore looga qabsaday oo ciidamada federaalka ay ka haysteen arrintaasi ayaa sababi karta in TPLF ay dib u soo noolaato kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya la waayay waxaana la sheegayaa TPLF inay ku jirto qabanqaabo iyo is-abaabul horlo oo ay rabto inay dib ula wareegto gobolkaasi Tigrayga sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa dagaal kula jirta dowladda Suudaan halkaasina waxaa la isku hayaa xuduudda u dhaxeeya dagaalo u dhaxeeya labada dal oo ay isku hayaan dhul waxaa la sheegayaa saraakiil ka tirsan dowladda Suudaan inay maanta ka degeen xuduudka labada dal saraakiishan ayaa la sheegay inay noqonayaan kuwii hogaamin lahaa ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira dowladda Itoobiya waxaa la sheegayay ilaa shalay maanta in la isku tuuriyay madaafiic iyo hubabka noocyadiisa kala duwan walow aanan xaqiijin karin dhimashada iyo dhaawaca balse